السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسو دوادا موقالكينا مانتا waxaynu kaga hadli doonaa sida aad u samaysan lahayd TikTok account oo ay u furan tahay Creator Program Beta. ugu horreyn waxaan soo gali doonaa TikTok-geena ama TikTok application-kiisa aad soo gali doontaa. markii aad soo gasho kadib waxaad ka sii dhufan doontaa halka ay ku qoran tahay profile. markaad ku dhufato kadib waxaad ka sii dooran doontaa waxaad taaban doontaa halka ay ku qoran tahay sign up ayaad dooran doontaa si aan akoon cusub aan u samaysano oo ay u furan tahay Creator Studio si aan lacag ugu samayno ama si aan lacag ugu furno. kadib waxaad halkaas ay ku qoran tahay SO ama Soomaaliya halkaas ku qoran tahay aad taabanaysaa si aad u beddesho waddanka. markaad taabato kadib halkaas search ay ku qoran tahay ayaad waxaad ka dooranaysaa mid ka mid ah waddamada loo ogol yahay sida United States oo kale. United States markaad qorto isla markiiba way kuu soo bixi doontaa oo United States of America ama United States ayaan ka dooranaynaa, Maraykanka ayaan ka dooranaynaa. kadibna markii oo halkii hore SO ay ahayd waxaa ku qoranmay United States. kadib lambarkeena caadiga ayaan ku samaysan doonaa oo Soomaaliga ah. phone ayaan ka dooranaynaa kadibna lambarka Soomaaliga aad leedahay aad gelinaysaa. uma baahnid wax VPN ah, sidoo kale uma baahnid waxyaabo kale oo dheeri inaad isticmaasho. kaliya halkaas ayaad wax ka beddelaysaa, lambarkaaga Soomaaliga ayaad gashanaysaa. kadib waad sii abuuri doontaa. wax yar ayaan suganaynaa. kadib wuxuu ku leeyahay shape isku eg halkan ka dooro si lagu gudbiyo. labadaas shape ayaa isku eg ayaan dooran doonaa. kadibna confirm ayaan taaban doonaa. sidaad arkaysaan wuuna gudbiyey. hadda code ayuu noogu soo diri doonaa nambarkeena. koodkaas ayaan gelinaynaa halkan. koodka markaan gelino kadib halkan waxaan ka sii dooran doonaa taariikhda dhalashada. taariikhda dhalashada waa inaad badsataa oo 92 iyo meelahaas aad ka dhigataa, waayo 18 wax ka yar looma ogola. iska fiiri 18 waa in da'daadu ay ka weyn tahay. 90 ama 94 meelahaas ayaan dooranaynaa. kadibna waan hore ayuu noo sii dhaqaajin doonaa. halkan waxaan u baahsan doonaa nickname ama magacaan u rabno ayaan halkan aan ka dooran doonaa. markaan qorno kadib confirm ayaan taabanaynaa. confirm markaan dhahno wuuna gudbin doonaa. verification ayuu inoo soo bixiyey. verificationkan ayaan sahaynaa. kadibna confirm ayaan taaban doonaa oo isagaa isconfirm garayn doona. don't allow dheh. sidaan ayuu noogu samaysmay ama sidaan ayaan u samaysan doonaa TikTok u furan tahay lacagta oo waddankii lagu sameeyey adoo waddankii jooga. sidaad arkaysaan TikTok-gii haddeer uu samaysan yahay waa zero flowers. si aan u ogaano in TikTok uu lacagta ay u furan tahay iyo in kale waxaan ku dhufan doonaa profile. sidaad arkaysaan TikTok Studio meesha ay ku qoran tahay ayaan taaban doonaa. markaan taabano kadib waxaad arkaysaa in monetizationkii wixii dhan uu diyaar yahay. monetizationkii iyo calaamadii wixii dhan waa diyaar. marka adigoo waddankii jooga qaabkaas ayaad u samaysan kartaa TikTok leh Creator Studio ama Creator Marketplace. sidaad arkaysaan qaybaha lacagaha oo dhammi waa kuwaan. marka TikTok lacag u furan tahay sidaas ayaad u samaysan kartaa. kadib profileka ayaad sawir saaranaysaa, save ayaad odhanaysaa. sawirkiina sidaas ayaan ku saaranay. haddeer waxaa kaloo idin tusi doonaa sida TikTok muuqaalada ugu viewska badan biin loogu xiro. waxaan kaas isla aadi doonaa TikTok-geenna kale ayaan isla aadi doonaa oo goordhow aan samaynay. TikTok markaan aadno
sida hadda arkaysaan hal muuqaal ayaa bin inoo saaran oo halkaas muuqaal weligii sidaas ay u marsanaan doonaa waayo bin ayaa inoogu xiran. waxaan rabnaa 2 muuqaal kale inaan ku soo darno oo aan bin ku xirno si ay mar walba iyaga uga hor muuqdaan oo weliba aan ka soo dooranno muuqaalada ugu viewska badan ama ugu daawashada badan. haddaba midkan oo 13,000 haysto ayaan ku dari doonnaa oo bin ayaan ku xiri doonnaa iyo midkan iyo mid kale oo isagana oo views fiican haysto. saddexdood ayaan bin ku xiri doonnaa. midkan 42,000 haysto ayaan taaban doonnaa. markaan taabano kadib 3 dhibcood calaamaddaas 3 dhibcood ayaan ka sii taaban doonnaa. markaan ka sii taabano kadib halkaas ay ku qoran tahay bin ayaan ka sii taaban doonnaa. bin markaan taabano isla markiiba muuqaalkii sidaas ayuu bin inoogu xiran yahay. dhanka sare ayuu mari doonnaa. wax yar refresh dhihi doonnaa oo wax yar ayaan suganaynaa. markaan refresh dhaano qaybta sare ayuu soo qaban doonnaa. binet ayuu leeyahay sidaad arkaysaan. refresh ayaan odhan doonnaa kadibna qaybta sare ayuu soo mari doonnaa oo halkaas ayuu ku xirnaan doonnaa ilaa aan uga qaadno biinka. markaad ka qaadaysidna isla bartii ayaad tegaysaa isla biinkii meeshay ku qorneed ayaad taabanaysaa. kadibna sidaas ayuu uga qaadmayaa ambiinet ayuu noqon doonnaa. sidaad arkaysaan muuqaalka hadda biinka aan saarayna waa kaa uu saramaray. mid kale ayaan ku sii dari doonnaa. tusaale midkan oo 13,000 ayaan ku sii dari doonnaa. isagii ayaan taaban doonnaa muuqaalka aad rabtid. kadibna 3 dhibcood ayaad taaban doontaa. 3 dhibcood markaan taabano kadib waxaa inoo soo bixi doona waxyaabo badan. kadib waxaan ka sii taaban doonnaa bin meeshay ku qoran tahay. markaan taabano kadib oo aan dib u laabano wax yar ayaan suganaynaa. kadibna waxaan odhan doonnaa refresh. biijka ayaan refresh odhan doonnaa. 3 bin aan ku xirnay 3doodba qaybta sare ayay soo mari doonaan. sidaad arkaysaan 3 muuqaal oo biinka aan ku xirnay qaabkaas ayay weligood halkaas ay yaali doonaan. qof waliba oo soo booqda brofaylkaaga muuqaalada ugu horreeya oo arki doona waa kuwa aad biinka ku xirtay ay noqon doonaan. waxaan rajaynayaa inaan intaas isla fahanay. qaabkaas ayaana biin looga xirtaa muuqaalada ugu viewska badan ee tiktok pagekaaga uu ku jiro. muuqaalkan waxay iga codsadeen dad asxaabta ka mid ah, sidaas darteed intooda badanna looga qaatay sida akoon creator studio ay u furan tahay lacag looga sameeyo lacag looga qaatay. marka adigoon lacag lagaaga qaadan ayaad adigu samaysan kartaa. qaabkaasna ayaadna u samaysan kartaa. intayna muuqaalka mid la mid ah aynu dib ugu kulmi doonno alla idankii isma dhaafin.